بسم الله الرحمن الرحيم. aan wax ka baranno weydiintan ah what is an investment bank. inta aanan erey bixin investment bank aan isla fahanno micnaha capital raising. waana nidaamka ay shirkadaha iyo dowladaha lacag ay uga helaan maalgashatada si lacagta ay shirkadaha ugu qabtaan ama ugu ballaariyaan waxqabadkooda oo ay ugu gaaraan hadafka ay higsanayaan. haddaba lacagta waxa ay noqon kartaa mid ka mid ah saddexda nooc oo hortiina ka muuqda, kuwaasoo kale ah: 1 dayn sida bond oo kale, 2 hanti maalgashi sida saami ama share, 3 isku dhaf oo iskugu jirta dayn iyo hanti maalgashi bond iyo share. markana aan isla aragno erey bixinta investment bank ama bangiga maalgelinta. waa mid ka mid ah hay-adaha maaliyadda, waxa ayna bixiyaan adeegyo kala duwan oo ay ugu qabtaan dowladaha iyo shirkadaha waaweyn, oo waxa ay ka gacan siiyaan adeegyo sidii ay ku heli lahaayeen dowladaha iyo shirkadaha lacag ay ku maalgeliyaan shaqooyinkooda ama raising capital, iyo sidoo kale inay tala bixin uga sameeyaan shirkadaha raba in ay isku biiraan ama shirkad rabta inay shirkad kale gadato merger and acquisition. sidoo kalena waxa ay shirkadaha ka gacan siiyaan dib u habeynta shirkadaha wajahaya xaaladaha adag ee dhaqaale ama maamul. sidoo kale waxa ay shirkadaha iyo dowladaha ka gacan siiyaan inay tala bixin ka siiyaan warqadaha maaliyadda oo ay soo saarayaan nooceeda, ma mid dayn ahbaa sida bond oo kale ama saami. sidoo kale waxa ay ka tala bixiyaan tirada warqadaha maaliyadda ee la soo saarayo, lacagta lagu qorayo ee xilliga ay ku munaasabka tahay in la soo saaro warqadaha maaliyadda waa xillige. sidoo kale waxaa dhacda in bangiyada maaliyadda ama investment bank inay iyaga gataan warqadaha maaliyadda oo dhan, kadibna ay ka sii gadaan maalgashatada kale. markana aan isla aragno erey bixinta underwriting, waxaana ku qeexi karnaa in ay tahay nidaam bangiga maalgelinta uu kaga gacan siinayo dowladaha iyo shirkadaha sidii ay ku heli lahaayeen lacag maalgelin, kadibna marka la soo saaro warqadaha maaliyadda oo noqon karta dayn ama saami ama isku dhaf si ay lacagta ugu maalgeliyaan baahida ay qabaan. noocyada underwriting waxaa ka mid ah saddexdan hortiina ka muuqata, waxaanan uga hadlaynaa mid mid. haddaan ku hormarno midda koowaad oo ah firm commitment, oo ah marka la soo saaro warqadaha maaliyadda, bangiga maalgelinta ayaa wada gadanaya warqadaha maaliyadda oo dhan. lacagta lagu heshiiyey oo dhanna waxa uu siinayaa dowladda ama shirkadda u baahan lacagta, oo sidoo kalena ah qoladii loo soo saaray dartood warqadaha maaliyadda. kadib bangiga maalgelinta waxa uu warqadda maaliyadda dib uga gadayaa dadka maalgashatada ah. si kale haddaan u dhigno, shirkad ama dowlad ayaa lacag u baahan. si ay lacagta u helaan waxa ay u imaadaan investment bank oo ay ka rabaan inay ka gacan siiyaan sidii lacagta lagu heli lahaa. haddaba investment bank marka ay daraasad iyo qiimeyn sameeyaan kadib, waxa ay shirkadda ama dowladda u soo saarayaan warqadaha maaliyadda ku habboon oo la rabo in lacagta lagu helo. haddaba warqadda maaliyadeed oo dhan waxaa wada gadanaya investment bank. lacagta lagu heshiiyey waxaa bixinaya investment bank si horumaris ahaana, oo waxaa la siinayaa dowladdii ama shirkaddii lacagta rabtay. kadibna investment bank warqadihii maaliyadda waxa ay ka sii gadayaan dadweynaha raba inay maalgashtaan lacagtooda. nooca labaad waxaa loo yaqaanaa best effort. midaana wax ballanqaada oo ay bixinayaan qolada investment bank ma lahan, balse nidaamkan waxa ay ka tahay ka investment bank ahaan waan dadaalaynaa si aan u gadno warqadahan maaliyadda oo dhan. haddii la gadan waayana
investment bank mas-uul kama ahan nidaamkaas ayaa loo yaqaanaa best effort. nuuca saddexaad waxaa loo yaqaanaa all or none oo micnaheedu yahay waxa ay investment bank ku helayaan lacagta khidmadda soo saaridda warqadaha maaliyadda marka dhammaan la wada gato warqadaha maaliyadda, balse haddii la gadan waayo ayagoo dhan investment bank wax lacag ah oo ay helayaan ma lahan. xog dheeraada oo ku saabsan warqadaha maaliyadda iyo suuqa lagu kala iibsado warqadaha maaliyadda merger and acquisition fadlan ka dhigayso lifaaqyada hoose oo aan hadda ka hor kaga soo hadalnay. mahadsanidin waa inoo mar kale haddii rabbi idmo.